ma akhriday buugaag ku saabsan self development adigoo rajaynaya in noloshaada wax ka bedesho buugaagta aad akhrisayna hal shay oo ka xasuusto ma lahan noloshaadana waxba iska ma bedel buugani waa buugii ugu horeeyay ee aan ku bilaabo self development books sidanna waan u akhriyay noloshu waxay kaaga baahan tahay buugaas haddaad wax iga weydiiso wixii aan ka akhriyay waxba kama xasuusto buugana waa buugii aan dhammaystiray bishii koobaad sidanna waan u akhriyay haddii aad iga weydiiso wixii aan ka akhriyay buugan mawduucyada ugu muhiimsanaa waan ka xasuustaa videogeenan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 5 tallaabo oo kaa caawin doona inaad si waxtar leh buugta self development bookska aad u akhriso haddii kale lacagtaada iska khasaaran haddaba 5 tallaabo aynu u gudagalno videogana ku soo dhow qaxwaagana hore soo qaado buugtan waxaynu isticmaali doonaa sidii mentor ahaan oo kale videogan dhammaadkiisana waxaan kugula wadaagi doonaa tusaale si aad adiguna noloshaada u isticmaali karto 5 tallaabo tallaabada koobaad maskaxdaada waa inay ku jirtaa su'aal u baahan jawaab ma jira waxyaalo fara badan oo aad la dhibaataysan tahay ama aad u leedahay xal haddaba raadi buug ku saabsan mawduucaas kaasoo aad isleedahay jawaab ayuu ku siin doonaa ama xal ayaad ka dhex heli doontaa buugaas haddaba buugan waad soo iibsani ama internetka ayaad kala soo degi amase ma jira waxaad xiisaynayso mawduuca haddaba buug ku saabsan la soo deg ama soo iibso tallaabada labaad soo hel raqam sirta hal page oo kaliya akhri kalana soo dhaxbax halka page nuxurkiisa halkan si fiican dhigeyso haddii labadeenu ay buug wada akhrino waxaad adigu aragto inay ku noqon karso nuxur waxa laga yaabaa inay aniga aysan ii noqon karin nuxur adigana sidoo kale waxa aniga ay tahay nuxur waxa laga yaabaa inaysan adigana ku noqon karin nuxur marka wax walba oo akhriso ha ku xidhin qofka kale wuxuu uu nuxur u arko ee kaliya adigu maxaad u aragtaa nuxur kalena soo dhaxbax waxaan ku huba waxay tahay haddii aad buugtan joogtayso akhrinteeda waliba si waxtar leh aad wax u akhriso waxaan hubaa waxa hadda ku ah nuxur inuusan ku noqon doonin mustaqbalka nuxur way maskaxdaadu waxay raadini fikrado cusub ama nuxurro cusub tallaabada saddexaad raqam sirta u bedel su'aal halka iyada anaga u bedel aniga ka bacdina si su'aal ahaana raqam sirtaas ama nuxurka u bedel tallaabada afraad jawaabta raaci waxaad u malaynayso oo kaliya inay jawaab ku noqon karayso uun kaliya qor waxaan u jeedaa nuxurkii aynu su'aal ahaan u bedelno waynu iman doonaa tusaalaha in yar hayga degdegin tallaabada shanaad uguna dambaysa sharci ka samayso raqam sirta sharci ka samayso si aad noloshaada u isticmaali karayso waxa aad buugan ka baratay haddaba aynu u gudagalno tusaalaha waxaan maanta isla eegi doonaa oo aynu u akhrin doonaa si waxtar buugga la yiraahdo Atomic Habit haddaadan haysan wax dhibaato malahan PDF aynu wada akhrin doonaa adiga laftarkaaguna ila akhri waxaan rajaynayaa inaad hore u akhrisay haddii aadan hore u akhrina fadlan kula talinayaa akhri buugan waxaan wada akhrin doonaa buugga 198 ciwaanka buuggani waxa weeyaan sidee baad wax badan ugu fulin karaysaa dadaal yar bal qiyaas adigoo haysta tuumba filaya tuumbo weeyaan waxa looga jeedaa tuumbo beerta aad ku waraabsatid oo dhexda ka laaban biyuhuna ay si daqiiq ah uga soo miirmayaan iyagoo aan badnayn haddii aad rabto inaad kordhiso qulqulka burqashada biyaha ee dhex maraya dhuuntan tuubada waxaa ku hor yaala inaad laba talo mid doorato doorashada koobaad waa inaad sii furto waalka oo aad qasabto biyaha badan in ay ka soo baxaan dhuunta tuumbada doorashada labaad waa inaad si fudud inaad dhuunta tuumbada uga saartid oo aad u ogolaato biyaha inay si dabiici ah uga soo baxaan dhuunta tuumbada isku daygaaga ah inaad hesho dhiirigelinteeda ku aadan caado adag laasimideeda waxay ka mid tahay inaad isku daydo inaad xoog uga saarto biyaha tuumba laaban waana iska suurtagal inaad samaysid laakiinse waxay kuugu qaadan doontaa dadaal badan taasina waxay kordhin doontaa walaaca nolosha waayahay haddaba haddii aynu intaa akhrinay maxaynu ka fahmaynaa waxaynu aan akhrinay haddaba 5 tallaabo sidee baynu u isticmaali karnaa waxaynu hadda akhrinay aynu ku noqono buuggan anigu haddaba saan u akhrin lahaa iyo qaabka waxtar kale aynu isticmaali lahaa 5 tallaabo tallaabada koobaad su'aal waa inay ku jirtaa maskaxdaada haddaba si aad tusaale u fahanto waxaan kaa siin doonaa tusaale aniga nolosheeda ku saabsan 2023 September baajuudigii u badan iyo waqtigii u badan waxaan geliyay naftayda iyo shaqadayda halkaana waxaan waqti gelin waayay sportigeygii ama gymteedii saasna waxaan nasiib xumo igu fuulay miisaan ka bacdina waxaan isweydiiyay waxa ahayd maxaad samayn karaysaa oo ku sahli karaya inaad joogtiso gymta adigoon juhdi fara badan aad gelin marka maskaxdaydan ayaa su'aashaasi ku jirtay haddaba waxa aynu ka baran doono maanta buuggan ayaanu isticmaalay noloshayda si ka warqab la'aana haddaba sidaan u isticmaalay mawduucan aynu ku noqono tallaabada koobaad su'aal waa inay ku jirtaa maskaxdaada
nasiib wanaagna saad u jeedaan mawduuca boggani wuxuu ka hadlayaa waxaan anigu rabo waxay ahayd inaan caado joogteeyo natiijana aan helo aniga oo waqti badan aanan gelin hadafkaygu wuxuu ahaa miisaankayga hoos dhimo aniga oo murqahaygana sidoo kalena korinaya talaabada labaad soo hel raqam sirta ama nuxurka boggani waxa weeyaan sidee baad wax badan ugu fulin karaysaa dadaal yar talaabada saddexaad raqam sirta u bedel su'aal meelaha iyada anaga u bedel aniga ka bacdina su'aal ka dhig haddii aan raqam sirta su'aal u bedelno sidee baan wax badan ugu fulin karaa dadaal yar haddaba su'aal haddii aan u bedelo wixii aniga maskaxdayda ku jiray oo ahayd inaan miisaan rido sidee baan miisaankayga u ridi karayaa aniga oo gym yar tegaya talaabada afraad jawaabta raaci haddii aynu ku noqono wixii aynu akhrinay ba waxa ku jirtay tusaale aad u qurux badan inoo noqon karta jawaab ama aniga ii noqotay jawaab tusaale aad u qurux badan oo ku jiray wuxuu ahaa waxaad waraabinaysay beertaasi tuumbada aad wax ku waraabinaysay baa qaloocsantay laba doorasho ayuu baad haysataa labada doorashana waa sidee doorashada koowaad waxa weeyaan intaad qasabada tagto ayaad waxaad isku dayay inaad qasabada xoog u furto si biyo badan ay uga soo baxaan waa doorashada koowaad doorashada labaad oo wina si waxay ahayd waxaad isku dayi doontaa tuumbada meesha ka qaloocdo inaad kaliya toosiso si qulqulku oo si fiican oo saafiya oo uga soo baxo jawaab aad qurux badan ayuu si waxay ahayd ka waran haddii aad toosiso kaliya tuumbada qaloocsan waxaan isiri maadaama aadan rabin inaad joogtayso gymta ama waqti badan aadan rabin inaad geliso muxuu yahay wax sida tuumbada qaloocsan kuugu turjumi kara noloshaada haddii aad toosiso jawaabta ku siin kara ma arkaysaa sida intan yar aynu wada akhrinay aynu u isticmaalnay sidii qof mentor ama qof waxayna baraya oo kale jawaabna waxa ii soo baxday cuntada muhiimadda saar anigoo gymta tegaya 2 ilaa 3 jeer isbuuc walba oo weliba aan ku qasbanay inaan tago waxa calaamitadan ay ka koobnaan doontaa kaliya 1 saac ugu badnaan weliba 1 saac waxaan ka dhigtay hadaf waxay tahay in aan maalin walba 70 gram oo protein taasoo ka kooban cunto protein macnaha badankana aan hadafka saarayna cunto ka koobnaato ba maalin walba waxaan go'aansaday ugu yaraan 70 gram oo protein inaan jirkeyga siiyo kulba baahida sida ay qabato cuntooyinka kale ee soo hara waa inay ahaadaan low calorie foods cuntooyin macnaha tamar yar ay ku jiraan saasna waxaan ku gaaray hadafkaygii miisaankii wariday anigoo sidoo kale murqahaygana korinaya talaabada shanaad uguna dambaysa sharci ka samayso nolosha isticmaalna sharcigan ka samaystana wuxuu noqday mar walba on carqalad la kulmo isweydii muxuu yahay halka shay ee haddii aad toosiso saameynta ugu weyn yeelan kara macnaha sidii tuumbadii qalloocsaneed oo la toosiyo oo kale marka talaabada shanaad waxay ku sahli doontaa mar walba oo boog wax ka dhigato inaad u isticmaasho noloshaada sida ugu dhaqsaad badan waliba si aad kaliga u fikirto waxaad u baahan tahay inaad kaliga wax isbarto haddii aadan adigu kaliga fikiri kareyna qof kale ayaa ku fikiri doona si aadan qof kale fikirkiisa ugu tiirsanaana waa inaad boogtan akhrisaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaa videogeena maanta sida ugu waxtarka fiican leh ee loo akhriyo boogta self development books boogtani ma ahan boogta iskuulka waxay kaaga baahan yihiin self coaching inaad adigu wax isbarto marka haddii uu jiro qof asxaabtada kamid oo u akhriya boogtan sidan oo kale noloshu waxa ay oo waxba ka xasuusan ugu dambaysta mar walba akhriyo boogtan waxaan ku leeyahay waxay tahay la wadaag videogan adiguna waxaad ka baratay videogan hoos noogu reeb yuusan noqonin videogani mid aad iska dawato kali mid ku anfaca ha ku noqdo waa markii xigta caafimaad badan ayaan kaaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh